asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago howlgalladii ciidamada ICE ay ka wadeen Minneapolis iyo St Paul dadkii lagu xirxiray oo Soomaali ay ku jiraan ayaa dowladda dacweeyay sababta loo xiray darteed haddaba Soomaalida dacweysay qaarkood oo la faahfaahiyay dacwadahooda arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa waxaa sidoo kale jirta maxkamad ku taala California ayaa waxay dacweysay ciidamada ICE waxayna ka doonaysay bal xogta inay helaan dadka la xiray ilaa iyo markii Trump uu xilka la wareegay kuwa la masaafuriyay kuwa iskood isku masaafuriyay yaa dambiilayaal ah yaasan dambiilayaan ahayn haddaba xogta ay ka heleen ICE maxay muujinaysaana sidoo kale waan idinla wadaagayaa imisa qof ayaa viisayaashii dowladdu ay kala laabatay sidoo kale ilaa iyo markii Trump uu xilka la wareegay 80,000 oo qof dadka badan ayaa viisayaal lagala laabtay oo arday u badan waan idinla wadaagayaa sidoo kale balse marka hore soo dhawaada toddobaadkii labaad ayaa ciidamada ICE howlgallo waxay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis dad fara badan ayaa la xirxiray oo Soomaali ay ku jirto haddaba waxaa la helay in 11 qof oo ka mid ah dadkaasi la xiray oo Soomaali ay ku jirto in dowladda ay dacweeyeen sababo la xiriira xarigooda howlgalladan ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinka St Paul iyo Minneapolis waxa ay ugu magac dareen Operation Metro Surge koodii bishan ayuuna bilaabmay sida aan ognahay marka 4 ka mid ah dadkaasi la xiray ayaa dhammaantoodba hadda dowladda dacweynaya oo waxa ay ku dacweynayaan sababta la xiriirta xarigooda oo la xiray waxa laga carabaabay wiilkan Soomaaliga ah oo la yiraahdo Abdul Daahir Ibrahim waxa uu ka mid yahay dadka dowladda dacweynaya oo qareenkiisu uu dacwad ka gudbiyay waxaana wasaaradda amniga gudaha ee DHS ay sheegtay in garsoore uu amar ku bixiyay in wadanka laga masaafuriyo Abdul 20 sano ka hor kadib markii lagu helay dambi ah inuu wadanka Canada ka soo galay oo asylumkiisa ama magangalyadiisa uu been ka sheegay ceyrina sidoo kale uu si sharci darro ah ku qaatay sida wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay haddaba qoraalkan ayaa wasaaradda amniga gudaha barta X ay ku leedahay 3 maalmood ka hor wasaaradda amniga gudaha ay soo dhigtay iyadoo muujinaysa xariga Abdul oo la xirayo Minneapolisna si weyn looga yaqaano waxaana wasaaradda amniga gudaha ay ku soo qortay waxa aan xirnay nin dambiilaha oo sharci darro ah magaciisana waxay ku sheegeen Abdul Daahir Ibrahim waxaana lala xiriirinaya yiraahdeen siyaasiyiinta waaweyn ee magaaladaasi Minneapolis oo maba gobolka Minnesota sidoo kale sida sawiradan ay muujinayaan waxa la helay isagoo la sawiran gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo sidoo kale Cumar Faatix oo sanadara isla markaana maayarka u tartamay marka wasaaradda amniga gudaha qoraalkeeda waxay sidoo kale iyadoo sii wada ay sheegtay Ibrahim in lagu helay dambigaasi uu Canada ka soo galay asylumka iyo waliba inuu ceyr uu ka been sheegay inta uusan soo galin Mareykanka bishii Abriil ee 3 sanadkii 2004 marka garsoore uu maxkamadda immigration uu ku amray in wadanka laga saaro iyadoo lagu saleeyay inta ay la eg yihiin musuqmaasuqa isaga lala xiriirinayo marka hoosna waxay uga qoreen bye bye Abdul oo micnaheedu tahay waan ku masaafurinayna marka waxa uu ka mid yahay dadka dacwadda ka gudbiyay qareenkiisu oo dowladda dacweynaya sabab la xiriira xarigiisa waxa sidoo kale jirta Abdul inuu ku noolaa Shakabi isla markaana uu xaq u lahaa temporary protection statuska inuu dalbado 95tii ayuuna wadanka ka soo cararay waxa la leeyahay Canada in xiliyadaasi uu soo galay ayay u badan tahay marka 10 qof oo kale marka Abdul laga reebo ayaa iyaguna dowladda dacweeyay waxaana sidoo kale jirta dadkaasi inay ka kala yimaadeen Soomaaliya Suudaan Ethiopia Ecuador Honduras Masar iyo sidoo kalena wadanka Mexico dadkaas waxay ku dacoonayaan qaarkood kiiskoodii asylumka inuu pending yahay magangelyo doonka oo wali aan go'aan laga gaarin mid ka mid ah oo aan u maleynayo inuu Soomaali yahay laakiin magaciisa aan la sheegin ayaa waxa uu sheegay in uu Soomaaliya ka soo cararay kadib markii in qabiilka xaaskiisa ay tooriyeen isla markaana hooyadii ay dileen marka kiiskaasi ayuu sheegtay waxa sidoo kale jirta qaar ka mid ah iyaguna in ay xaq u leeyihiin oo green card ay leeyihiin oo xaq u leeyihiin muwaadiniin Mareykan inay noqdaan oo dhalashada ay qaataan marka sidaasi ayaa dadka qaar ay ku dacwoonayaan marka howlgalladana wali waa ay socdaan dadkaasi oo Soomaali ay ku jiraan oo 11 qofna dowladda ay ku dacweeyeen sabab la xiriira xarigooda arrintaasi haddii halkaasi aan kaga gudbo
ciidamada ICE xogta waxaa jirta dadka ay xiraan amaba ay masaafuriyaan in ay public ka dhigaan oo dadka ay la wadaagaan. Marka arrintaasi waa ay diideen ICE inay dadka la wadaagto shacabka Mareykanka dadka ay xiraan maxaa dambiilayaal maxaa la masaafuriyay yaa iskood isku masaafuriyay arrintaasi waa idin. Marka jaamacad ku taala California oo magaceeda la yiraahdo University of California Berkeley qaybteeda u qaabilsan in masaafurinta ayaa waxa ay dowladda ku dacweysay inay ka helaan xogtaasi. Marka ICE ayaa qaybta u qaabilsan xiritaanka dadka iyo masaafurinta xafiiska u qaabilsan ICE ayaa xogtan waxa uu la wadaagay marka jaamacadii maadaama lagu dacweeyay qasabna ay tahay in haddii la dacweeyo xogtaasi ay soo bandhigaan. Xogtan cusub waxay muujinaysaa ICE ilaa iyo markii Trump xilka uu la wareegay 20 January ilaa iyo bishii October 15keedii bishii 10aad in dadka ay xireen 220,000 oo qof ay gaarayeen 75,000 oo qof oo kamid ah dadkaasi waxaa la ogaaday in aysan wax dambiyaha lahayn. Maamulka Trump waxa uu leeyahay dambiilayaasha kuwa ugu daran ayaan bartilmaameysanaynaa sida kuwa dilayaasha ah kuwa caruurta kufsada iyo sidoo kale gaangiska. Marka waxaa la ogaaday 220,000 oo kamid ah in aysan wax dambiya aysan lahayn. waxaana howlgalladaasi ay ka sameeyeen magaalooyin ay kamid yihiin Chicago oo Illinois ku taala, LA oo California ku taala, Charlotte oo North Carolina ku taala, iyo hadda oo ay ka wadaan New Orleans oo gobolka Louisiana ku taala, St. Paul iyo Minneapolis waan ognahay sidoo kale in ay howlgalladu ay ka socdaan. marka waxaa leeyahay ilaa iyo 20 January isku celcelis ahaan maalin kasta dadka ay soo xareeyeen 824 qof ayay ahayd sida xogtu ay muujinayso. xilligii Biden sanadkii 2024 maalin kasta dadka la soo xareeyay 312 qof ayay ahaayeen. marka waxaa leeyahay 60% dadkaasi la soo xiray oo ICE ay soo xireen da'doodu waxay u dhaxaysaa 25 ilaa iyo 45. xogta ICE ay soo gudbisay marka waxaan ku cadayn tirada dadka ay masaafuriyeen kuma cadda, laakiin waxyaabaha ku cad waxaa kamid ah in 22,959 qof ay iyagu iskood wadanka ay isaga masaafuriyeen. wasiirka amniga gudaha talaadadii hore markii golaha wasiiradu ay shirayeen waxa ay madaxweynaha ay u sheegtay in 2 milyan oo qof wadanka ay si mutadawacnimo ay isaga masaafuriyeen. laakiin xogtan ICE hadda ay la wadaagtay jaamacaddan waxay muujinaysaa 22,959 qof in iyagu iskood ay wadanka isaga masaafuriyeen. hadda xogtu waxay muujinaysaa sidoo kale xabsiyada ICE ay maamusho in ay ku jiraan ilaa iyo 65,000 oo qof guud ahaan wadanka Mareykanka. xabsiyada ICE ay gacanta ku hayso 65,000 oo qof ayaa ku xiran. marka sidaasi ayay xogtu muujinaysaa, laakiin waxa aan ku cadayn tirada ilaa iyo hadda markii Trump xilka uu la wareegay ay dowladdu masaafurisay. laakiin waxaa muuqata in wasiirka amniga gudaha sidoo kale been ay ka sheegayso dadka sida mutadawacnimada iyaguna wadanka isaga masaafuriyay oo 2 milyan ka badan ay ku sheegtay, laakiin hadda 22,000 oo kaliya ay xogtan ay muujinayso. dhinaca kale dowladdu waxay sidoo kale waday masaafurinta amaba inay kala laabato viisayaasha dadka iyaguna wadanka viisa ku yimid oo ku joogay. ilaa hadda waxa wasaaradda arrimaha dibadda ay xaqiijisay shalay maalnimadii Isniinta 85,000 oo qof in viisayaashoodii waliba noocyo kala duwan ah lagala laabtay. waxaana kamid ah 8,000 oo ardayda ajnabiga ah waxbarashada u soo doonata Mareykanka in ay ku jiraan. marka waxaa leeyahay dadkaasi sababaha loogala laabtay waxaa kamid ah qaarkood iyagoo cabsan oo gaari wadaya in la arkay, qaarkood gacan qaad ay geysteen oo assault ay geysteen, intooda badanna xatooye ayay sameeyeen dadka viisayaasha lagala laabtay. bishii August waxaan ognahay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay sheegtay inay hirgelinayso in ay baaritaan joogtaha ku samayso 55 milyan oo qof oo ajnabi ah oo wadanka viisayaal sharci ah ku jooga Mareykanka. sidoo kale waxaa jirta in ardada inta badan la masaafurinayay, ardadaasina waxay ahayd sababta loo masaafurinayay in ay mudaharaadyo ay ku taageerayaan Gaza ay jaamacadaha ay ka sameeyeen oo lagu eedeeyay inay yahuud nacayb isla markaana argagixiso ay taageerayaan. sidoo kale dilkii ninkii cunsuriga ee cadaanka Charlie Kirk markii la dilay bishii September dad fara badan oo iyagu u dabaaldegay dilkiisa ay dowladdu waxay bilowday sidoo kale in viisayaasha ay kala laabato. marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay ilaa iyo 85,000 oo qof ayaa viisayaashii lagala laabtay isla markaana wadanka la yiri isaga bax sida muuqanayso oo arday u badan ajnabi ah oo wadanka wax ka baranaysa. marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan markala kulmi doono waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.